dunidan cidda joogta doqona diinta aqoonin dadka waa ka ulista deedna waxaa ka baliita midka diinta yaqaanee dabadeed aan ku dhaqmay cidda cayn ka timaada ama sanaa ka carowda ee cabtu meeshan ku ekaato iyo cidda sool iska joogta cilmigay nugaal ka bartaana caqligooda waxaad moodaa Cabdulla Qudhiiso inuu isagu aad ugu baahnaa in ka badan inta anagu baahanahay waxaa laga yaabaa inuu ka sugayay ardayda uu ka sugayay uusan rabin in banaanka ama database ama program laga soo sameeyo banaanka uusan rabin markaas Qudhiiso farxad bay u tahay anagana farxad bay noo tahay jaacadna farxad bay u tahay macallimiinta iyo gebi ahaan jaamacadda waxaad ugu salaamaysaa salaanta islaamka inta ka bacdi waxaan rabaa inaan wax yar ka dhaho programkan soo bandhigi rabo ardayda soo bandhigayaan ay ku qaadanayaan maaragtay programkooda digriga shaqada digriga wallahi aad ay muhiim u tahay in laga soo xaadiro oo la soo xaadiro la soo buuxiyo lana arko sida uu shaqeynayo oo laga hadlayo programkii ugu horreeyay ee gooyinka Soomaaliyeed dadkii waxa loo yaqaan isagoo oo waraaqo mabagidaar tagaya dumarka dhalinyarada odayaasha wadaadada cid kasta wayna ka soo qayb gashaa program habeenka 15 bisha June waxa lagu soo bandhigayaa meel aan laga aqbalin waxa geed Mr. Jaac laakiin laftirkiisa ma aha jaamacadda u dhow qolka lambarkee qolka koowaad فضلاً هموجان صوب بندقيست برنامج كافو دايما بيش نلقو كده شروع شقية تمكن الرحمن الرحيم أقول بلا نورت مقع إلهي انتهى كبعدي أنه كلية كمبيوتر ساينسكا فاكولتيغا كمبيوتر ساينسكا باج 3 أما سيس 3 مهانتي بروجرام كان ريفولو جراي وحلي لهذا داتابيس مانجمنت سيستم كان وكان فعلتنا إن بدن وأنا وحلا بهنا الأسبوعي sidoo kaleeto ardaygu waxa uu leeyahay inuu ka access kareeyo soo haysta ID numberkiisa caalamka meel kasta uu joogo taas oo xuquuq u leeyahay inuu heli karo informationkiisa oo full ah maxaan Cabdullaahi Jaac waxaan dhigtaa jaamacadda Nugaal waxaan ahay kulliyadda computer science-ka class CS5 system kan cusub ee ardayda ay isticmaal doonteen anigu waxaan aaminsanahay inuu wax weyn ka bedeli doono systemkii hore ee oldiga ahaa in qofku mar walba oo xafiiska imtixaanaadka uu tagi jiray uu weydiin jiray in uu weydiiyo ninka fadhiya xafiiska uu mar walba weydiiyo waxaan aaminsanahay hadii systemkani uu shaqeeyo oo uu qaybta online ka qof walba isagoo gurigiisa jooga hadii uu internet helo in uu halka imtixaankiisa ku ogaan karo taasina ay faa'iido weyn oo jaamacadda Nugaal maanta u soo korodhay ay tahay waxaana aad iyo aad ugu mahadcelinayaa ardaydan sharafta badan ee isku taxalluujisay barnaamijkan hirgelisayna in maanta jaamacaddeena meel kasta oo la joogo in qofku isagoo tuulo jooga isagoo magaalo kala jooga isagoo gobol kala jooga uu fursad qaali u helay in uu ogaado imtixaankiisa iyo intii uu ka keenay maadooyinkii uu galay aad iyo aad waxaan ugu wargelinayaa dhammaan macallimiinta ardayda macallimiinta sekretariyada ardayda sekretariyada dhammaan dadka waxbarto oo dhan waxaan jeclaan lahaa xafladda qaaliga marka la soo bandhigayo programka inay ka soo qayb galaan oo ay ogaadaan horumarkan jaamacadda ay gaadhay iyo waxbarashada sayada leh ee laga barto jaamacadda Nugaal waxaan kaloo sheegayaa dadkan aaminsan in jaamacadda Nugaal aan waxba laga baran in aqoonteedu ay tahay aqoon aad iyo aad u sareysa tan maanta la soo bandhigayo ee barnaamijkan ardayda sharafta leh inoo soo bandhigasana uu yahay mid ay ku tusaale qaadanayaan وقورين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقعيقو عبد الله آدم محمود كانت ترسن أرضي جامعة المقال مقالة الأسعاد قول كسول مقالة الأسعاد كارهان أرضي هرمارينتي يوغاميتو برشدة سيدا عدي أينو كاقنا foreign language كان يتهاي
community development and leadership batch 2 CD2 gaar ahaan third year waxaan aad u soo dhaweeyay oo dhawaanaha dhagteeda ku soo dhacaysay arday kamid ah ardayda IT-ga gaar ahaan ardayda hadda ka jibinaysa sanadka afraad ku jira ayaa waxay sameeyeen project aad aan wada dhacay projectigaas oo ah exam result-ga in ardaydu ay ku heli karaan online iyagoo jooga xaafadooda shaqadooda iyo meel kasta oo ay ka joogaan Soomaaliya exam result-kaas oo ka caawinaya in ay position-ka ay joogaan ka helayaan intii ay ka doonan lahayn jaamacadda Nugaal qofku waxa laga yaabaa inuu waqtiga uu sii baxayo kale jaamacadda ka qalin jibinayo inuu ka dawareego academic jaamacadda marka waxay saaraysaa inuu si toos u helo inuusan jaamacadda ka doonanba oo kadibna uu ku xisaabtamo wixii ka maqan iyo wixii tobanayo marka aad iyo aad baan soo dhaweynayaa waxaan u gudbin lahaa inay ardaydu ka faa'iideystaan sida loo isticmaalayo wana haddii aan si kale ugu sheego maalintu waxa weeye 15 June 2015 خضر علي حسين وحنا رجعتها فكرتي كمبيوتر ساينس خاصة كلاس CS3 وأنا كلاس كسنة كان قلنا نجيب دونا جامعة إن شاء الله تعالى برامج كاس برامج ودبنا ندكو سمريين صبر بدنا وموجين تاسوي كين يصير بهذا كانت أي تحي أنا الأرض وهلا امتحانات كيسي أو دم يسترن سوق اللي يعمل كسر عالم كجوجو تاسنا وحي كين يسهر مركا إيو دقائق عصبي كين تدع عصبي سنة كقلنا نجيب نساء أبي المهندسين أبان من كاتيكنيكال كام إنجينير ذي ماشي كغير كله dhammaan bulshooyintu waxay ku khasbayeen inay ka soo qayb galaan taas waxaan khasabka u yiri waxa weeyaan ardaydan waa ardaydoodii jaamacaddan waa jaamacadoodii maamulkan waxaan ku dhiirigelinayaa inay ardayda ku siiyaan motivation taasoo dhiirigelinaysa inta naga dambaysaana inay hawshan in ka si casirsan qabataan adduunkana waa taqaanaa waa generation fara badan oo isdaba socda generationkan hadda intan uu keenay generationka dibna waxaan rajeynaynaa inuu intaan ka soo hormaro xafladan laga soo wada qayb galo dadka aan aqoonta lahayn ama dadka caqligooda aad u liito ayaa waxaa inta badan suuq ka sheega ninkii doonaya inuu tijaabiyo aqoonta jaamacadda Nugaal hortiisay taala ninkii doonaya meelaha ka hadlaana oo meelaha laga hadlay taasi dhammaan ardayda iga horreysay waxay qaateen database system management anigu arrinkan duwan baan qaatay oo ah maadaama ay ku jirto computer science qaybta communication ku adduunka hore hadda ugu marayo waxaan qaatay network system management taasoo suurta gelinaysa hadda ah tusaalahan ku siiyo alaabtan adiga ka duubiso iyo aniga waxaan u dhahay communication sida isugu xir lahaa jaamacadka kale ugu xirma lahayn si loo fahmi lahaa dadka adduunka connection kan adduunka jira soo xiran yahay tadawurka maanta wuxuu marayaa maalmo waxaad ka maqashay sharaagiga wala 3G baanu keenay 4G baanu keenay 4G muxuu macnihiisu yahay 2G muxuu macnihiisu yahay 3G macnihiisu muxuu yahay in la fahansiyo dadka say dadku ula jaan qaadan maanta heerkan caalamiga ah anigu waxaan keeni doonaa 5G haddaan waa jaamacadda magacaygu waa Maxamed Cali Cismaan waxaan ka mid ahay ardayda jaamacadda Nugaal University gaar ahaan ardayda computer science waxaan aad iyo aad soo dhaweynayaa ardayda isxilqaantay inay sameeyaan program online oo ardaygu ogaan karo isagoo xaafadiisa jooga in uu imtixaankiisa ogaan karo iyadoo ay dhibaato ku haysay marka hore ardaygu inuu intuu yimaado soo xilqaamo jaamacadda yimaado derbiga ka eego hadir waxa aad iyo aad loogu sahlay in iyagoo gurigooda jooga ay ka dheehan karaan imtixaankoodii kalena socon karaan website-kan online-ka ay loo sameeyay aad iyo aad ayaan u soo dhaweynayaa ardayda gaar ahaan waxaan u sheegayaa ardayda ku aadaysa ama ku yaacasa gobolada inala midka ogaada ardaydan waxay ka mid yihiin waxyaabaha ay soo saarayso ama productiga jaamacadda Nugaal University waxaan dhihi lahaa dhammaan ardayda macallimiinta gobolka hooyooyinka ardayda hablaha dhalinyarada sportska inay nagala soo qayb galaan xafladda oo ku beegan 15 bisha السلام عليكم كم من نقطة كفاية برنامج كان من نقطة ذاتك أوه رأي نصيبك ويا شيء بسيء أيديك فري سيدك لو حنا هبين كان بلنتينو هبين كاس كيو حاجة كم بس كم